السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuna soo dhawaada channelka Roman Media magaceyguna waa Abbas Mustafa waxaan maanta muuqaalkan ku soo qaadan doonaa dalka Saudi Arabia intaanan muuqaalka u guda galin like share videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo boqortooyada Sacuudiga waa dal galbeedka Aasiya ama mandaqada bariga dhexe ama jasiiradaha Carabta wuxuu ku fadhiyaa masaafo 2.1 milyan oo kiiloomitir ah ku dhawaad 4 jeer ayuu ka weyn yahay dalkeena Soomaaliya waa dalka labaad ee ugu baaxadda weyn wadamada Carabta sidoo kale waa dalka ugu weyn galbeedka Aasiya ama bariga dhexe waana dalka shanaad ee Aasiga ugu weyn ahna kan 12aad ee ugu baaxadda weyn dunida wadanku wuxuu xuduud la wadaagaa 8 dal Carabeed oo kala ah Yemen, Oman, Imaaraadka, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq iyo Urdun waa dalka qorax ee wada maraan labada badood oo kala ah badda Cas iyo badda biyaha Bershiya ku dhawaad 34 milyan oo qof baa ku nool wadankaas 38% ama ku dhawaad ilaa 13 milyan oo qof waa ajaanib oo dalka ka shaqeeya boqortooyada Sacuudiga waxaa la aasaasay 88 sano kahor waxaana sameeyay Abdulaziz ama Ibn Saud oo ahaa aabaha boqorka maanta maamula dalkaas waa dal lacag mandaqad muhiim ah badankiisana saxara ah balse hodan ah 6 sano kadib xilligaas ayaa laga helay shidaalka maanta Sacuudiga waa dalka labaad ee ugu soo saarista badan shidaalka caalamka waana dalka koowaad ee ugu dhoofinta badan shidaalka caalamka sidoo kale Sacuudiga waa dalka labaad ee leh keedka shidaal ee ugu balaaran caalamka waana kan shanaad ee leh keedka gaas ee ugu balaaran caalamka waxaa loo tixgeliyaa in Sacuudigu yahay awoodda hogaamida tamarta dunida keedka kheyraad ee dalkaasi ceegaga waxaa lagu qiimeeyaa lacag dhan 34 trilyan waa dalka saddexaad ee leh keedka hantideed ee kheyraad ee ugu balaaran dhaqaalaha Sacuudigu waa kan 18aad ee caalamka ugu balaaran ahna dalka ugu horeeya ee ugu dhaqaalaha badan galbeedka Aasiya ama guud ahaan bariga dhexe 780 bilyan ayuu gaarayaa GDP-ga dalkaas dakhli sanadeed soo gala qofka Sacuudiyaanka ah sanadkii waa 54,000 celcelis ahaan waa dal ka mid ah wadamada heerka horumarka bulshadoodu aadka u sareeya sidoo kale dalku waa mid ka mid ah wadamada nidaamka warshada ku horumartay ee G20 shirkadda shidaal ee soo saarista ugu qaalisan dalkaas ee Saudi Aramco waa shirkadda ugu qiimaha sareysa caalamka ahna tan soo xirigelisa hantida ugu badan sanadkii waxay maamushaa keedka shidaal ee 277 milyan oo fuusta kor u dhaafaya waana shirkadda ugu shidaal soo saarista badan caalamka hantida ay soo xareysay waxay kor u dhaafayaan 1 trilyan sidoo kale Sacuudiga waa dalka dhanka ciidanka qarashaadka ugu badan aadka ugu baxsha kaasoo xulafo leh galbeedka waa dalka saddexaad ee qarashka ugu badan ku baxsha ciidanka sanad walba 63 bilyan ayuu ku baxshaa sidoo kale waa dalka hubka ugu soo iibsashada badan dunida nidaam ahaan waa dal boqortooyo ah oo islaam ah waxaa maamula dalkaas hal qoys sharciga ugu sareeya boqorka ayuu gacanta ugu jiraa inkastoo dhaxal suguhu dalkaas oo wiilkiisa ah oo si rasmi ah u maamula dalkaas Sacuudiga waa dal saameyn balaaran ku leh mandaqada uu dhaco ama guud ahaan wadamada islaamka isna arko horumarka wadamada sunniga ah siyaasadda dibadda ayuu dhaqaale badan ugu baxshaa si uu ugu muuqdo wadamo badan oo Iran iyo Turkiga ugu horeeya ay isku hayaan maamulida bariga dhexe sharciyan diin aan islaan ahayn inay dalkooda si rasmi ah macbuudyo ugu yeeshaan lama ogola 85% bulshada dalkaas ee Sacuudiga ah waa Sunni halka 15% ay soo haray ee Shiici yihiin dadka wax qoro waxna aqriya ee dalkaas ku nool ayaa bulshadoodu ka ah 95% halka cimrigoodu gaaro ilaa 77 sano celcelis ahaan Sacuudigu waa dalka ugu weyn dunida wadamada aan wabiga lahayn dhanka waxbarashada dalkaasi jaamacadda ugu tayada sareysa Aasiya ayaa ku taal oo ka qayb ah boqolka jaamacadood ee dunida ugu sareeya